halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa mawjadaha gaaggaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boggeenna v o a somalia waad ku maqli doontaanna waxaa ka mida wasiirka amniga ee galmudug oo sheegay in ka badan 100 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab lagu dilay duqayn shalay ka dhacday camaara isagoo sidoo kalena qiray in dagaalkii camaara ay askar dhinacooda uga dhimatay waxaad kaloo maqli doontaan dagaallo u dhexeeya soomaalida iyo canfarta oo mar kale maanta ka qarxay deegaannada xadka ee labada dhinac ay wadaagaan waa la diriraynaa waana iska dhicinaynaa waana la jaadin naf iyo maal wax alla waxaan hayna waa la diriraynaa saqiir iyo kabiirna u kala hari mayno inaan u kala harnaan lagama yaabo waxaan kaloo idiin haynaa dalka yugandha uu maanta la gaarsiiyey qaxootigii ugu horreeyey ee laga daadgureeyo dalka afghanistaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horraynaya warkii dunida nin ku hubaysnaa qori daranduuri u dhaca ayaa la dilay kadib markii uu weeraray islamarkaasina ku dilay 3 askari oo bilays ah iyo weliba nin ilaalo ahaa agagaarka safaaradda faransiiska ee magaalada daarusalaam ee caasimadda dalka tanzaniya sidaasina waxaa sheegtay madaxweynaha dalkaasi saamiya suluuxu xasan ayaa twitterkeeda ku qortay in la dilay ninkii weerarka geystay ayna xaaladdu haatan tahay mid deggan bilayska tanzaniya ayaa baaraya dhacdadan oo uu geystay nin asalkiisu yahay soomaali kormeeraha guud ee bilayska simon sero ayaa u sheegay suxufiyiinta inay tuhunsan yihiin in ninka weerarka geystay laga yaabo inuu ka yimid gobolka cabo delgado ee dalka mosambik laakiin ay weli baarayaan dhacdadan bilayska ayaan bixin tafaasiisha la xiriirta sababta uu ninkan hubaysan weerarka u qaaday iyo cidda uu beegsanayey muuqaallo lagu baahiyey mareegyada oo aan si dhab ah loo xaqiijin karin ayaa muujinaya albaabada safaaradda faransiiska ee daarusalaam nin taagnaa bannaanka albaabka iyo weliba iyadoo la maqlayo dhawaaqa rasaasta tiifiyada tanzaniya ayaa baahiyey muuqaallo muujinaya bilayska oo xihan jaakadaha aan xabaddu karin oo isku duwaya wax u muuqanayay meyd yaalay bannaanka safaaradda sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee royters taalibaan ayaa weydiisatay turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee kaabuul kadib marka ay baxaan ciidamada shisheeye laakiin waxay ku adkaysanaysaa in militariga ankara ay sidoo kale si buuxda dalkaasi uga baxaan dhammaadka bishan sidaasina waxaa u sheegay royters 2 sarkaal oo turkisha codsigan shuruudda wata ee ka soo baxay kooxdan islaamiga ah ee taalibaan oo 20 sano kadib dib u qabsatay talada dalkaasi ayaa ankara ku noqday go'aan aad u adag sida uu sarkaal turki ahi sheegay turkiga oo ah dal muslim ah oo qayb ka ahaa howlgalkii ciidan ee isbahaysiga neto ee afghanistan ayaa sidoo kale waxaa 100 askari ay weli ka joogaan garoonka diyaaradaha ee kaabuul dowladda madaxweyne tayyib rajeb erdogan ayaa muddo bilo ah waxay ku celcelinaysay in ciidankeedu ay sii joogi doonaan haddii laga codsado kolkii ay daalibaan qabsatay caasimadda kaabuul ayuu turkigu u soo jeediyey inay ka kaalmayn karaan dhinacyada farsamada iyo ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee kaabuul madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo dhiggiisa shiinaha shing jinping ayaa isku raacay in waddamadoodu ay dardar gelin doonaan dadaalada ka hortagga khatar ka timaada afghanistan kadib markaa talada dalkaasi ay gacanta u gashay taalibaan sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka a f b oo soo xiganaysa bayaan ka soo baxay aqalka kremlinka ee looga arrimiya ruushka labada hogaamiye oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa muujiyey sida ay diyaarka ugu yihiin dadaalada lagula dagaalamayo khatarta argagixisnimo iyo midda ka ganacsiga daroogada oo ka timaada afghanistan sida lagu yidhi bayaanka ka soo baxay kremlinka dhowr dal oo horey uga mid ahaan jiray midowgii sofiyeeti kuna yaalla bartamaha eshiya oo ay moskow ku leedahay saldhigyo militari ayaa sidoo kale xuduud la leh dalalka ruushka iyo shiinaha inkastoo moskow ay si taxadar leh niyadsami uga qabtay hoggaanka cusub ee kaabuul putin ayaa ka digay in mintidiinta afgaaniyiin ah ay qaxooti ahaan ku soo geli karaan dalalka deriska la ah afghanistan ugu dambaynna bilayska magaalada dubai ayaa arbacada maanta ah xaqiijiyey inay xireen mid ka mida ragga dowladda talyaanigu ay sida weyn u doondoonayso ee ku lugta leh dembiyada ka ganacsiga daroogada isaga iyo gacanyarihiisa oo muddo sannado ah baxsad ahaa rafaele imbreliale oo loo arko inuu yahay mid ka mid a ragga baxsadka ah ee ugu halista badan talyaaniga ayaa ahaan jiray xubin sare oo ka tirsan kooxda dembiyada abaabulan ee nables 2006 ayaa la aaminsan yahay inuu baxsaday dalkan ku yaala khaliijka qoraal ka soo baxay bilayska ayaa lagu sheegay in rafaele muriello
oo ah gacanta midig ee Imperiale la xiray isna sidoo kalena waxaa loo haystaa inuu mas-uul ka ahaa abaabulka iyo fulinta dilalka iyo khaarijin lagu fuliyey hub aan dowladda u diiwaan gashnayn. Bilayska Dubai ayaa sheegay in Imperiale uu adeegsanayay magac been abuur ah oo ahaa Antonio Rocco, isagoo isticmaalayay gawaari kala duwan si uu u qariyo dhaqdhaqaaqyadiisa. wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA fiidnimo wanaagsan. Maamulka Galmudug iyo weliba militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ku dhawaad 100 qof oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyn culus oo shalay Mareykanku uu ka fuliyey degmada Camaara kadib dagaalo halkaasi ku dhex maray Al-Shabaab iyo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalin Faqi ayaa u sheegay VOA in 10 askari ay uga dhinteen dagaalkii shalay ka dhacay degmada Camaara. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay Axmed Faqi, wasiirka amniga ee Galmudug, iyadoo ugu horreynna weydiisay khasaaraha dagaalkaasi ka soo gaaray ciidamada Galmudug. Shabaab dee waa dagaalamaynay 2 bilood oo la soo dhaafay. Dagaal xoogan baa dhulkan ugu dhex maray. Dad 250 ka badan ayaa uga geeriyooday kooxahaas intaan hubno. khasaaro taas dhaawac ka badanna waa ka soo gaaray. wal harbu sijaal dagaalkuna waa xeeladu leeyahay. shalay aroortii hore ayay magaalada Camaara duleedkeeda soo weerareen kooxahaas sidii lagu yaqaanay dad qaraxyo ku rakiban yihiin iyo gaadiid qaraxyo wata. ciidankuna dee way dadaaleen waana iska difaaceen. ciidamaduna waxay u tababaran yihiin dee inay markay arkaan daad ku soo fatahmay inay iska moosaan. ciidankeenuna xeeladii ugu fiicnayd ayay ku dirireen. khasaaro la-aanna dagaal ma jirinba. dagaal aan galno oo aan khasaaro lahayn ama khasaarihiisu ha yaraado ama ha weynaadee ma jirin, laakiin waxaan hubnaa in khasaaraha gaaray kooxdaas Al-Shabaab oo aad u badnaa. wararka qaar waxay sheegayaan in weerarka ay si muddo gaaban ay magaalada ku qabsadeen, sidoo kalena ay jirto saraakiil dhinaciina uga dhimatay oo khasaaruhu waxoogaa dhinaciina uu badan yahay. maxaa ka jira taas? aslan ba horta magaalada kama dhicin dagaalku. magaalada meel u jirta 3 kilomitir ayuu dagaalku ka dhacay. magaalada haddii uu dagaalku ka dhici lahaa dadka rayidka ayaa khasaare ka soo gaari lahaayeen, guryaha ku burburi lahaa. marka magaalada ma ahayn dagaalku, duleedkeedu ahaa. ilaahay ha u naxariisto dadka naga dhintay. waa shuhado, waana ciidanka. runtii mana dagaaladii aan geli jirnana kama khasaaro badnayn dagaalka hadda shalay. dagaalada qaarkood saraakiil waa nooga dhimatay oo maalmo dhexdaasaba saraakiil ciidamada qaarkood hogaaminaysa nooga shahiiday. halkaana saraakiishii ciidamada dagaalka hogaaminaysay kulli waa bad qabaan. ciidamadii caadiga ahaa oo 10 ayaa meeshaas nooga shahiiday. ma jirtaa marka gaadiid dagaal oo ay maleeshiyada Al-Shabaab dagaalkaasi kaaga qabsadeen? horta dabeecada dhulka haddaan kuu tilmaamo waa dhul bacaad ah. ciidahan haddaad aragtay Shanaanbood iyo markii u dhexeeya oo kale, ciidda badda oo buura ah ayaa dhulkaasoo dhan ku wareegsan. dhulka lagu diriray waa dhul noocaasa. meelaha qaarkoodna geeda kale, meelaha qaarkoodna buurahaas ah. baabuur naga gashay ciidda naga gashay oo ciidanku dib uga soo durkeen oo sidaas ay gacanta ugu gashay way jiraan. laakiin baabuurteena badankeedii ciidanku waa la soo badbaadeen, waana ayagaana wada furtay xoogan. magaalada Camaarana dee 2 saacadood ayaa laga maqnaa. waxaa jirta sidoo kale in Mareykanku ay duqeymo ka geysteen. waa halka Mareykanku ay duqeeyeen, maxaase xog ah oo aad ka haysaan? runtii ciidamada cirka duqeyntaas ciidamada Mareykanku ay geysteen waxay ahayd mid dagaalka qaybka ah. meesha ay duqeeyeen waa meel 3 kilomitir u jirta goobtii dagaalku uu ka dhacay, meel aan ka fogeyn oo 3 kilomitir qiyaastii u jirta magaalada dhanka ka xigta koonfurta. meeshaasoo maleeshiyaadka Al-Shabaab markii dee goobtii dagaalka ciidankeenu dib ugu soo rogaal celiyeen oo ay ka soo baxeen oo magaalada ay soo dhex mareen
ayay 3 kilomitir meel magaalada u jirta isku damceen inay isku urursadaan oo wixii ka maqan iyo isku wareystaan. halkaas ayaa maaragtay duqeyntu ay ka dhacday oo 2 gantaal lagu burburiyay wixii kooxihii dagaalka soo qaaday badankoodii. waxaan dhihi karnaa dadka dagaalka soo qaaday 250 qiyaastii bay ahaayeen. in ka mida nus ka mida meeshaas waa ku baaba'day. intii kalena inta ciidamadeena ay soo socdeen ayay gaadiid ku aruursadeen. halkaas marka khasaare xoogan oo aysan ka soo waaqsan karin baa ku gaaray kooxda. kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka galmudug axmed macalin faqi, wuxuuna khadka telefoonka ugu waramayey falastiin axmed iimaan. dhinaca kalena magaalada gaalkacyo dadweyne aad u fara badan ayaa maanta dhigay dibadbaxyo looga soo horjeedo kooxda al-shabaab. dadkan ayaa taageero u muujiyey ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ee dagaalka kula jira kooxda al-shabaab. warbixintanna waxaa gaalkacyo ka soo daray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq. dibadbax lagu taageeraya ciidamada ku sugan deegaanada Camaare iyo Shabeelow ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, kaasi oo ay soo abaabuleen qaybaha bulshada magaalada Gaalkacyo. dibadbaxa oo ahaa mid lagu dhiirigelinayay ciidamada isla markaana shacabka lagu baraarujinayay sidii ay uga qaybgeli lahaayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ayaa waxaa shacabka Gaalkacyo kala qaybgalay odayaasha dhaqanka, mas-uuliyiinta degmada Gaalkacyo iyo wasiirro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug. nabadoon cali cismaan xaashi ayaa sheegay in shacabka gobolka Mudug ay u diyaarsan yihiin la dagaalanka maleeshiyada al-shabaab. waa jabahayaan waxa weeye dalkeenna iyo diinteenna iyo dadnimadeenna waana ku diriraynaa, waana ku jabayaan haddii ilaahay. waxaan ayaga laftooda ugu baaqahayaa, laftigoodan waxaan ugu baaqahayaa war meeshaan waxa weeye dadka meeshaan dad qaadiriya, waa dad muslima, weligood lama qabsan, lamana gumaysan, mana gumaysanaysaan haddii ilaahay. waxa weeye wasiil baa soo weerarteen, wuxuu yidhi sarsar baan ka maro, san miyaan ka cuna, waa waxay sababay saarnayd, sabab baa inii saarnayd, waana ku jogteen kor iyo hoosba waa laydinka weeraray. haddana waa inii dabagelayna muslimiinta meel kastoo joogtaanna waan ka sifaynayna haddii ilaahay. fartuun cabdidhoof oo ka mid ah haweenka gobolka Mudug ayaa sheegtay in haweenka gobolka Mudug ay ka qaybgalayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. bismillaahi raxmaani raxiim. meeshaan waxaan ku soo dhowaynaynaa inaan maantay la dirirno khawaarijta al-shabaab. al-shabaab intaan kama awood badna, laakiinse waxay baalka sheeg layidhahdeen ismoodeen inay dadka ka awood badan yihiin. waa la diriraynaa, waana iska dhicinaynaa, waana la jaadin naf iyo maal wax alla waxaan hayna waa la diriraynaa. saqiir iyo kabiirna u kala hari mayno. inaan u kala harnaan lagama yaabo. saqiir iyo kabiir u kala hari mayno maanta al-shabaab. waxaan ugu tegaynaa ilaa xarar dheeraan ugu tegaynaa. ma daynayno, mana day doonno. meeshay geli lahayaan haddeeraa sii diyaarsanay al-shabaab. gunaanadka ayaa waxaa dibadbaxayaasha la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle. maanta inaanu waxaana la harin oo naftayada iyo maalkayga difaacanno oo dadaanan waxba ka qabin ay deegaankayga nagu soo weeraraan oo nafteeda noogu yimaadaan wax la qaadan kara maahan. waa gunnimo xilli laysgumaysto oo ama midab laysku gumaysto ama afkaar laysku gumaysto ama reer laysku gumaysto. adduunku waa ka gudbay. qaybaha bulshada gobolka Mudug ayaa muddooyinkan waday dadaalo lagu barbar istaagayo ciidamada dagaalka kula jira al-shabaab ee ku sugan Camaare iyo Shabeelow, waxaana dhaqaale lagu taakulaynaya ciidamada ay ka aruurinayeen goobaha ganacsiga magaalada Gaalkacyo. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, Gaalkacyo. dalka ethioobiyana dagaallo ayaa mar kale qowmiyadaha soomaalida iyo cafarta ku dhex maray xadka ay wadaagaan. saraakiisha soomaalida ayaa u sheegay v o a in cafartu ay soo weerartay iyaguna ay iska caabiyeen. dhinaca kale maamulka cafarta oo ay v o eda la xiriirtay ayaan wax war ah dagaaladan ka soo saarin. warbixintanna waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata. mar kale ayuu dagaal dib uga qarxay deegaanada ay ku muransanayeen soomaalida iyo cafarta, iyadoo uu saaka dagaalka dib uga qarxay goobta lagu magacaabo cundhuftu qabalayo hoos yimaada, iyadoo deegaanka lagu magacaabo cundhuftu oo goobta dagaalka uu ka dhacay saake ay saaran tahay laamiga jidka Jabuuti iyo Addis Ababa isku xidha. haddaba idaacadda v o a oo isku dayday in ay wax ka ogaato dagaalka iyadoo ay adag tahay in warar saxa laga helo goobta dagaalka uu ka dhacay saaka, ayaa waxay v o a la hadashay qaar ka mida goobjoogayaal ku sugan deegaanka cundhuftu oo ah goobaha ay dagaalku ka dhaceen. waxa uuna v o a u xaqiijiyey siday wax u dhaceen, isaga oo tilmaamay in saaka subaxii maamulka cafarta oo kaashanaya jabhadda Gogoma
iyo sidoo kale maleeshiyaadkooda ay weerar ku soo qaadeen deegaano hoos yimaada candhuftu kadibna ay iyagu iska caabiyeen ciidamadii weerarka soo qaaday waa sida hadalka u dhigay magacaygu walaal waa xuseen cabdi aadan baa meel qabale la yidhaahdo shagla la yidhaahdo magaalada cundufo hoos yimaada u ahaa markaasaa ka shacabka maaragtaan weerar ballaaran bay kusoo qaadeen shacabku maaragtaan way isdifaaceen kadib maaragtaan saacaddu markay 10kii abaarahayna waxaana soo gaadhay ciidamada gaarka deegaanka ayaana soo gaadhay oo maaragtaan naga caabiyey waan iska caabinay cadowga markaa dhankiisa waxaan wax ka weydiiyey dagaaladan saaka dib uga bilowday galbeedka city gaar ahaan deegaanadii ay isku hayeen deegaanka soomaalida iyo cafarta ee deegaanka candhuftu guddoomiyaha gobolka city idriis jibriil waxa uuna ku eedeeyey in maamulka cafarta ay saaka subaxii dagaal ku soo qaadeen dadka shacabka ee ku dhaqan qabaleeyo hoos yimaada candhuftu islamarkaana ay iska caabiyeen oo kale maanta inay qaadaan bay rabeen oo ummadda ay haddana xasuuqaan cundhufo agagaarkeyga meelihii haartana inay kusoo qaadaan iyo dan la helay labadaa goobood iyagana maadaama diyaargal oo laiskaga sii jiray si adag baa laiskaga difaacay dhankooda mar aan xiriir la samaynay maamulka canfarta gaar ahaan wasiirka xafiiska warfaafinta dowladdeegaanka canfarta axmed kaleyta si aan uga waraysano dagaaladan dhacay iyo eedeymaha ka soo yaaray dowladdeegaanka soomaalida balse nooma suuroobin balse wixii ka soo kordha macluumaad arrimahaasi idaacadaha naga xiga ayaan idinku soo tabin doonaa isku soo wada duubo dagaalada ka socda galbeedka city ee gaar ahaan degmooyinka ay isku hayaan soomaalida iyo cafarta ayaa waxayin kuwa dagaalo ay horey uga dhaceen sidoo kalena waqti xaadirkan dagaaladu ay dib u soo cusboonaadeen iyadoo aysan jirin ilaa hadda wax waanwaan ah ee labada dhinac ee xalka gaaridda dagaalada socda maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dalka afghanistan 24 saacadood ee lasoo dhaafay ay kasoo daadguraysay dad gaaraya 19,000 oo qof dalka uganda ayaa isagu noqday dalkii ugu horreeyey ee afrika ee maanta la gaarsiiyo qaar ka mid a dadka afghanistan ee dalkooda laga soo daadgureeyey warbixintanna waxaa inoo haysaa sahra cabdi axmed wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa sheegtay in diyaarad gaara oo wado 51 qoys oo reer afghanistan oo isugu jiray haween rag iyo sidoo kaleto caruur ay kasoo degtay magaalada harada leh ee Entebbe ee dalka Uganda halkaasi oo loogu diyaariyey basas usii galbiya dadkaasi hoteeladii loogu talagalay inay degaan sida wasaaradda ay sheegtay waxaa jira dad badan oo laga soo daadgureyn doono dalka Afghanistan ee ay saameeyeen dagaalada xilliyada soo socda arrintan ayaa qayb waxay ka tahay codsi uga yimid dowladda Maraykanka dalka Uganda taasi oo ahayd inay si ku meel gaar u martigelinayso muwaadiniinta reer Afghanistan gaar ahaana kuwooda halista ku jira iyo kuwa sii gudbaya ee Maraykanka iyo meelaha kale ee dunida dib u dejinta looga sameyn doono go-aankan lagu martigelinayo kuwa u baahan martigelinta ayaa dowladda Uganda qaybteeda qaabilsan siyaasadda joogtada ah ee martigelinta qaxootiga iyo dadka dhibaataysan ay tahay inay kaalin ku yeeshaan sidoo kaleetana ay door ka qaataan arrimaha quseeya caalamka ayaa lagu yiri war-saxaafadeed lasoo saaray inkastoo aanan la xaqiijinin sida warbaahinta lagu sheegay waxaa warbaahinta ay sheegtay dhinaca kaleeto dowladda Uganda inay ogolaatay inay sii martigeliso ilaa iyo 2,000 oo qaxooti ah Uganda ayaa martigelisa in ka badan 1,500,000 oo qaxooti ah oo caalamka ka kala yimid waxaana sheegtay qaramada midoobay gaar ahaan kuwa ka yimid wadamada dariska inay u badan yihiin dadkaasi sida koonfurta Suudaan iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidoo kale waxay sheegtay inay ka shaqeynayaan sidii guryahooda loogu soo celin lahaa tiro badan oo dadka reer Uganda ah oo aanan awoodin inay ka soo baxaan dalkaasi Afghanistan oo caqabadaha ka jira halka
dalkaasi ay haystaan gaar ahaana kuwooda aanan soo gaari karin garoonka magaalada caasimada ee Kaabul. dalka dariska ee Rwanda ayaa waxa uu asna qorsheenayaa inay qaataan 10 gabdho ah oo ah kuwa iskooleyda ah ee dhigta iskoolka dugsiga hoyga Afghanistan ee gabdhaha. tan iyo markii Taliban ay la wareegeen 15kii bishan Agoosto dalkaasi Afghanistan, dadka reer Afghanistan ayaa aad uga sii quusanaya xaaladda wadankooda, waxayna rabaan inay u cararaan dalalka dibadda cabsi ay ka qabaan awgeed kooxdaasi Taliban. Safaaradda Mareykanka ee Kaabul ayaa waxay uga mahadcelisay Uganda naxariisteeda deeqsinimo ay ku soo dhaweysay dadka reer Uganda ee qaxootiga ah. Dowladda Uganda iyo dadka reer Uganda waxay leeyihiin dhaqan soo jireen ah oo ah inay soo dhaweeyaan dadka qaxootiga iyo bulshooyinka u baahan, ayaa lagu yiri war laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ee lagu faafiyay Twitter-ka. inta badan qaxootiga Uganda ayaa waxa ay ku nool yihiin xeryo qaxooti waaweyn oo ku yaala waqooyiga dalkaasi, laakiinse ku dhawaad 81,000 oo qaxooti ah ayaa degan magaalada caasimadda ee Kampala. hay-adaha gargaarka ayaa dhowr jeer ku celceliyay in ay jawaabta caalamka ee lagu taageerayo qaxootiga Uganda oo ah dal ay ku nool yihiin 44 milyan oo qof ay tahay mid aanan wax badan laga qabanin. mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. weli arrimahaasi ayaanu ku jirnay. qurba joogta dadka Afghaaniyiinta ah ee ku nool Britain ayaa ka walwalsan qoysaskooda ku nool dalka Afghanistan ee weli ku xayiran dalkaasi kadib markii ay Taliban la wareegtay magaalada caasimadda ah ee Kaabul. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxda kale ee xubnaha ururka G7 oo iyana shalay ku guuldaraystay inay ku qanciyaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden inuu dib u dhigo xilliga u qorshaysan in ciidanka uu kala baxo dalkaasi Afghanistan ayaa iyagana uga sii dartay arrimaha daadguraynta. wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa ka wareysay mid ka mid ah hogaamiyaasha qurba joogta Afghaaniyiinta ah ee ku dhaqan Britain, wuxuuna nooga soo diray warbixintan. waxaa sii kordhaya walaaca ah in dayuuradaha Britain ee dalka Afghanistan dadka ka soo daadguraynaya ay istaagaan kadib markii ra-iisul wasaare Boris Johnson uu ku guuldaraystay in la kordhiyo joogitaanka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan. qurba joogta ka soo jeeda dalka Afghanistan ee ku nool dalkan Britain ayaa iyaguna ka walwalsan suuragalnimada inay istaagaan duulimaadyada ka imanaya magaalada Kaabul. Dr. Nur al-Haq Nasimi waa madaxa xarunta Afghanistan and Central Asian Association oo fadhigeedu uu yahay magaalada London. Dr. Nasim oo xaruntiisu ay aad ugu mashquulsan tahay sida loo caawin karo dadka ka soo baxsanaya dalkaasi iyo kuwa ku xayiranba oo qaarkood ka tagay dalkan Britain ayaa ii sheegay in maalin walba dad aad u fara badan ay caawimaad u fidiyaan kuwaas oo doonaya in dadkooda ay la soo baxsadaan. Hundreds of people for the past 1 week they are attending our center. Qolaal qof ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay soo gaaraya xarunteenna oo safaf dhaadheer ku jira laga bilaabo 6 aroornimo. dadka ku nool London ayaa imanaya xarunteenna si ay talooyin u helaan ku aadan socdaalka iyo sidii ay uga caawin karaan qoysaskooda ku sugan Afghanistan in ay dalkan Britain dib ugu soo laabtaan. waxaanu nahay hay-ad yar oo ma lihin awood dhaqaale oo aan wax uga qabanno mushkiladda jirta iyo in aan gacan ka geysanno dadka Britishka ah ee ku xayiran Afghanistan iyo kuwa kale ee doonaya in ay qoysaskooda la soo baxsadaan ama ay u soo dacwoodaan. waa in dowladaha waaweyn ay arrintaani u istaagaan. Dr. Nasim ayaa sheegay in lama filaan ay ku noqotay in 20 sano kadib Taliban ay la wareegto dalka. waxaana uu yiri dadka reer Afghanistan iyo qurba joogta ku nool banaanka aad ayay uga xun yihiin waxa hadda ka dhacaya dalka gudihiisa. ma aanan filayn in taariikhdu ay dib u soo laaban doonto oo Taliban ay dalka qabsan doonaan. Afghanistan waxaan ka soo tagnay 1999 sabab la xiriira Taliban. 20 sano kadib waxaa muuqata inaanu galay xaalad adag. walwalka in ciidanka Mareykanku ay dalkaasi isaga baxaan 31 bishan Agost ayaa sabab u noqon karta inay joogsadaan gebi ahaanba dayuuradaha ka imanaya garoonka magaalada Kaabul oo hadda ay gacanta ku hayaan ciidanka Mareykanka iyo xulfadiisa. ra-iisul wasaare Boris Johnson iyo madaxda kale ee G7 ayaan ku guuleysan inay ku qanciyaan madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden in uu dib u dhigo xilliga u qorshaysan in ciidankiisa uu kala soo baxo dalkaasi xilli ay talaadadii shir ku yeesheen aaladda internetka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaan goordhow waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii haweenka iyo arrimaha qoyska, balse warkii dunida oo kooban aan mar kale idinkugu celiyo. nin ku hubaysnaa qori daranduuri u dhaca ayaa la dilay kadib markii uu weeraray islamarkaana uu ku dilay 3 askari oo biliiska ka tirsan iyo nin ilaalo ahaa agagaarka safaaradda faransiiska ee magaalada daarusalaam ee caasimadda ganacsiga dalka tanzaniya. sidaasina waxaa sheegtay madaxweynaha dalkaasi saamiya suluuxu xasan ayaa twitterkeeda ku qortay in la dilay ninkii weerarka geystay ayna xaaladdu haatan degan tahay. biliiska tanzaniya ayaa baaraya dhacdadan oo uu ka dambeeyey nin asalkiisu yahay Soomaali. kormeeraha guud ee biliiska Simon Siro ayaa u sheegay suxufiyiinta in ay tuhunsan yihiin in ninkan weerarka geystay laga yaabo inuu ka yimid gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique, laakiin weli ay dhacdada baarayaan. biliisku ma aysan bixin tafaasiisha la xiriirta sababta uu ninkan hubaysan weerarka u qaaday iyo cidda uu beegsanayay. muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka kuwaas oon si dhaba loo xaqiijin karin ayaa muujinaya albaabka safaaradda faransiiska ee daarusalaam, nin taagan albaabka iyo weliba iyadoo la maqlayo dhawaqa rasaasta. ururka taalibaan ayaa weydiistay dalka turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee caasimadda Kabul kadib marka ay ciidamada shisheeye dalkaasi si dhammaystiran uga baxaan. laakiin taalibaan ayaa ku adkaysanaysa in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda dalkaasi uga baxaan dhammaadka bishan. sidaasina waxaa u sheegay Reuters 2 sarkaal oo Turkisha. codsigan shuruudda wata ee ka soo baxay kooxda islaamiga ah ee taalibaan oo 20 sano kadib talada dalkaasi dib u qabsatay ayaa Ankara ku noqday go'aan aad u adag sida uu sarkaal Turkish ah sheegay. turkiga oo ah dal muslim ah ayaa qayb ka ahaa howlgalka ciidamada isbahaysiga NATO ee dalkaasi Afghanistan muddo 20 sano ah ku sugnaa, iyadoo ay weli 100 askari ka joogaan gudaha garoonka diyaaradaha ee caasimadda Kabul. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana muqdisho ku soo diyaariyey xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste. tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirasaaq Dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere. sababa badan oo isbiirsaday baa kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horeysa horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in dib loo sameeya. marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay siday u noolaayeen oo ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax la dhiso. interestka ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteennii masaalixdeennii legday. fursadna aanu ogolayn oo ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. waxaan maraynaa hadda markii waddankeenna doorasho ka samaysmi tagtoo layidhaha hala doorto madax cusub oo maamul jiray wakhtigiisu dhammaado. dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof ayagu ay doonayaan inay noo soo saaraan. halkaasaan maraynaa. danu waa kuwa waa danteed dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mida musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayaysa inay madax nooga dhigto. waa dan iyadoo ay leedahay. waxaa laga yaabaa musharaxa isaga ahoo suuqaa ka helay dowladda innaga inuusan danaheenna ku firfircoonayn uusan door noo ahayn. sidaasay
danaha dawladuhu u legdeen taanadii qof aan rabin baa nala soo saaraya qofkaan rabnina waa meesha laga saaraya haye cabdirasaaq dalmar bismillaahi raxmaani raxiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabi'inaya quwado shisheeya soo duulay waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin waxaan ku cadaynayaa hadda xamar baan joognaa ma ciidamo Itoobiya Kenya jooga ma ciidamo cadaan carbeed baa jooga Soomaaliya baa joogta haddii haddaba adigu wax beeca aad wadato waa laga gadaya Soomaali marka ayada dalkeeda gadaysa qaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan 3 iladood maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman la yiraahdo qurba joog oo diaspora intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authority oo dhaqan hogaamiye oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen 30 sano ayaa baab uu ku socday dalku wuxuu leeyahay oo ku guuleysan waaye hal hogaamiye oo daacadka ah noloshooda waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfawdeenay Suuriyaaniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu beeca ka yihiin waa Soomaali marka qofku haddii oo hadda kaasagu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibsado waxa eeda kuma laha laakiin anigu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeye burburka Soomaaliya haysta wax saameyn macna la kuma laha Axmed Deere maxaad ku sababeynaysaa in Soomaaliya ay ka dagilaadahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye iska cad baa jiro oo arinta cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airportka sida qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidamo samaysteen boorsooyinka aan hore u soo sheeganay waad ogtahay oo waqtiga asaga qoloba soo rarayso cid shaar u soo gelinayso nuxurka haddaan baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn oo adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqayso naga taanadii way qariyeen waxa jira wadamo la yiraahdo oo aad ogtahay adigu wariso maalin kasta wararka ka soo baxa daneeyayaasha Soomaaliya leeyahay dhaqaale ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadda ku maamulaan safaranti male wadankeena siyaasadda ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyaga qorsheeya Soomaaliya kama timaado qano yeeriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawlada ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaalaha iyo waxa soo eefooda waxay ku bixiyaan interestkoodii inay meel mariyaan kama bixi karno kama maarmi karno gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuuriyaaminaya 20 sano carta waxa laga joogaa 20 sano 2000 soo ba waxa jug meeshaadii joog ka dhigaya siyaasaddu sababtaas weeye cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed Deere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qorunsan tahay horta hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta geliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa Soomaali hadduu kale amase ka yimaado Itoobiya ka socdo hadduu County 5 ka socdo Kenya Gaarisa hadduu ka socdo maaragtay kuwan ku go'dan shaqaliiska Carabta hadduu Afrikadaas kale ka shaqaysto hadduu qaxooti dib u soo noqday Western countries dalalkan reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeeyo ficilka actionariska oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrinta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibanay danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabigu xaqee u maraa anagu noo maraa Soomaali waa adeegsada Soomaaligu wuxuu dirtaa ayaga lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagana wax baabiiya ujeedkana waxa weeye marka ilaa ummadaas ay ka baaba'do oo ay yaani maaragtay weyso nolol ay u higsato iyo wax mirjic ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yaani qolo walbana cutubkeeda way soo dirsataa Kenya way soo dirsataa Itoobiya way soo dirsataa Arab way soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimadu tahay waxa wax sameeynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburni oo dalkooda baabeynaya waa Soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta ah waa kuwa habeenaya maalin ku hawlan xil baan doonaya xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u iibsado una baaba'sado si kastaba haatee marka maalinka la helo Soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkan ma sarakacayo nolol iyo dawladnimada ma heli karo qofka mas'uulka laga doonayo
oo macnaha hadda aan u baahannahay oo daruuftan iyo baaba aan jira looga gudbi karo 5 arrimood waa inuu buuxiyaa. 1 waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin. 2 waa inuu yahay niman maleeshiya beelaad dagaal qabiili maxnad qabiili aan gelin. 3 waa inuu yahay niman hanti doonaynin. 4 waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin. waa inuu yahay nin asaga markaa lagu baryayo xukunka. alxaasil waxa weeye hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay, ayada tafaacisaysata, ayada isburburinaysa, ayada isku mashquulsan, cid kale wax yeesho ma jirto. waxaan joognaa gabagabadii dooda. xalku muxuu yahay? sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale? aan ku horeeyo Axmed Dheere. waxaan oran karaa xasan warto marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo, dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teeni qariyay dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysaan. dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo danteeni waafajiya teeni meesha ka maqan. markaas waxaan la noolaan karaa dawladnimadu waa soo noqonaysaa, danihiina waa la noolaan karaa nalagala hayo awlna baabi'i inta teeni meesha ka maqan tahay. kuwii kalena xawliga mawjada ku socdaan dawladnimadu ma samaysmi karto. bulshada Soomaaliyeed looyacado iyo raaskaambooni waa dad ehela wayna muujiyeen 100 jeer bay muujiyeen danihii dawladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya. taanadina 100 ma shaqaynayso. mawjadaas aan qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iideysano faa'iidadeena ku daro danteena la waafajiyo waxba kama socon karaa maqaabada. haya Cabdirasaaq, haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa? Soomaaliya waxay ageed suu taagay ka dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo, oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysay la helo, oo in la helo muwaadinkii Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo ammaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay. alxaasil marka inay ayagu isu tagaan, wada tashadaan, intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudihiisa ku noolaa ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan. ayaga marka dawladna dhisi kara, dooran kara, taas ayaana shaqaynaysa. 30 sanaan marayna, nus qarni baan ku dhownahay. dalalkii Afrika oo la midka ah sidoo kale ee burburay way dhismeen. Rwanda kamida, Burundi waa kamida, Liberia kamida, Congo kamida, Kinshasa iyo kuwa kaleba. marka maxaa anagana haysta? dhibkana haysta muxuu yahay? intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax, Axmed Dheere iyo Cabdirasaaq Dalmar. tan iyo kulanti dambe, nabaday. mahadsanid xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho. markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii haweenka iyo qoyska, waxaana magaalada boosaaso noogu soo diyaarisay Faaduma Yaasiin Jaamac. kulanti wacan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. goobaha waxbarasho ee haweenka lagu baro cunto karinta, isqurxinta iyo wixii la mid ah ayaa ah kuwo ay si gaara u leeyihiin dumarku. maamulaha macadka Daryeel Cooking Center Hani Cismaan Yuusuf ayaa VOA u sheegtay in xaruntii ugu horeysay ay sanadkii 2012 ka furtay magaalada Gaalkacyo, isla markaasna ay ka qalin jabiyeen arday gaaraysa 500 oo haween ah. waxaa kale oo ay noo sharaxaysaa noocyada cuntada ay barto haweenkan. markii ugu horreysay waxaan ka furay magaalada Gaalkacyo 2012 bishii 8aad baan furay. Gaalkacyo waxaa ku qalin jabisay 6 dafcadood, 6daas dafcadoodna ay kala yihiin 500 oo arday. dafcadii 7aad waxaan ku qabtay magaalada Boosaaso, ugu dhigayay 70 ilaa 60 arday gaarayso. waxaana ka qalin jabisay 32 arday. qaybta haweenka weeye, hooyooyin iyo gabdhaba intaba way isugu jireen iyo meel dhexaadba. cuntooyinka aad barto maxaa ka mid ahaniye? cuntooyinka aan baray oo isugu jiro quraac, qado, casho, macmacaan iyo sharaabyo. waxaana ka mid ah sida maxaan ku raadahay soor baransa, bariis barayani, bariis amira super, basta lasanyo, dulsha ananas, dulsha torte. waxaan ugu maqaalahanayay inkastoo haweenku ay xarunta Daryeel ka bartaan cunto karinta, inaad ku soo kordhisay waxyaabo dabiici ah oo haweenku isku qurxiyaan. maxaa ka mid ahaa?
waxaa ka mid a dhir heerbal ah oon maxaan ku yiraahdaye liiga keenay Sacuudi Arabiya. Dhirtaasoo heerbalka ah lagu isticmaalayo malab iyo caano, lagu isticmaalo malabka la qasaya iyo caanaha la isku qasaya. Dhirtana waa lagu darayaa sida qasilkiya loo marsanayaa. Kareen aan ka suubiyey bari idaad iyo dhir aan isku daray ayaa ka mid ah. Saliid maxaan ku yiraahdaye aad u fiican oo timaha ugu fiican oo maxaan ku yiraahdaye 10 beri gudaheeda jarriinkana ku joogsanaya bilna ku dheeraanaya ka mid ah. Indhakooshi rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo isticmaali jiray ayaa ka mid ah maxaan ku yiraahdaye oo la isticmaalayo oo indhaha aad iyo aad ugu fiican yihiin, quwo siinaya, timahii indhaha soo celinayo, arageysana aad u fiican yahay. buugaag cuntada laga barto ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay munaasabada haweenka shahaadada lagu guddoonsiinayay kuwaas oo ay diyaarisay xarunta Daryeel Cooking Center. buugga ugu horeeyay aan soo saaray waxaan soo saaray 2015 bishii shanaad baan soo saaray. waxaa la dhahaa kor u qaad karintaada, waxayna ka kooban tahay 5 nooc oo kala duwan: casho, quraac, qado iyo maxaan ku rahaa macaan iyo sharaab ayaa ka mid ah. marka buugaagtaasna aad iyo aad bay ugu liibaaneen dadkii maxaan ku rahaa maadaama gobolka Puntland aan buug hore looga soo saarin, aad iyo aad bay ugu najaxeen buugaas. waxaan ku xijiyay kale hadeertaan sanadkan 2016 bishii saddexaad buug aan soo saaray macmacaan ah oo ka kooban yahay 50 cashar. buugaas waxaa la kororso karinta macmacaanka. waxaan ku yiraahdaa xafladii aad baa munaasabada loogu gatay. maxaan ku yiraahdaa dadkina aad iyo aad ayay u dhiirigelisay. Shukri Salaad Cali oo ka mid ah haweenka ka qalin jabiyay macadka Daryeel Cooking Center ayaa sheegtay inay muhiim tahay in haweenku ay bartaan xirfadaha cunto karinta. magacaygu waa Shukri Salaad Cali, waxaan ka mid ahay ardayda ka qalin jabisay macadka Daryeel Cooking Center ee cunto karinta. waxaan baranay 60 cunto oo kala duwan, waxaana baranay 3 bilood gudahood. qofka hadda sidii update-ka ah oo adduunka oo caalamka oo dhan qof kasta wuxuu jecel yahay inuu skill yeesho education-ka marka laga yimaado waxbarashada. cunto karintuna waa xirfad aad u muhiim ah maadaama aan ahay gabar dhalinyaro ah una diyaar garoobis inay noqoto qoys maadaama aan hadda ahayn oo hooyada la joogo. haddana qof kasta oo dhalinyaro ah oo gabadha Soomaaliya waxay u baahan tahay inay barato cunto karin. ilaa anaga canjeelo iyo baasti bariis sida loo kariyo baan naqaan. marka waxa isleedahay waa waxbarasho ka sokow jaamacadda ku laabnayd oo aad isleedahay way ka dhinay si wanaagsan. waa cilmi aad uga faa'iiday, wax badanna waan ka bartay. gurigina waan ku update gareeyaa oo maamada waan caawiyaa. insha Allah mustaqbalkana waxaan rajeynayaa inaan isku filnaansho buuxda gaari doono, weliba laga maarmi doono cuntooyinkii xaajiyada suuqa doonan jireen fast foodska ahaa. inkastoo haween badan ay noloshoodu ku tiirsan tahay xirfadda cunto karinta oo ay goobo waxbarasho ka furteen qaar ka mid ah magaalooyinka Puntland, ayaa haddana aabbayaasha qaarkood waxa ay u arkaan in qoysasku ay horumar ka sameeyeen inay helaan cunto nafaqo leh oo isu dhammaystiran. magacaygu waa Ismaaciil Umar Maxamed. waxaan u arkaa walaal horumar la gaadhay, waayo waxa weeye cuntadu markii qofka dumar cuntada uu barto sida loo sameeyo waa uu ka fiican yahay qofkii aan hore aqoon oo dumarka ahaa. waayo waxyaabo badan oo mataqaana aanu samayn jirin ayaa u kala baxaya. cunto waxay sameynaysaa oo kaleeto quality leh oo nafaqo leh oo qofku mataqaana dee ciyaalkii iyo odaygii iyo xiise gaara ku haysa. waa gartay. dhinaca qiyaastoo kale ma la leeyahay qoyska in dhaqaalihii uu noqdo mid miisaaman? haa, aad iyo aad waxa weeye dee waxa keenaysa waxaan waxa weeye dee qofka dumara aqoonta u leh waxay noqonaysaa wax uu aqoon u leeyahay oo waxa weeye experience fiican uu ka haysto bay noqonaysaa. waa uu dhaamaa marka hooyadii hore oo iska samayn jirtay oo cuntada daadin jirtay oo cuntada guriga dadka jooga cunto ka badan inta u samayso la daadin jiray way dhaantaa tan aqoonta u leh. waayo waxa weeyaan waxay garanaysaa wax quality leh in uu samayso, waxay garanaysaa waxa weeyaan wax la daadiya inaysan meesha imaan oo cabir ay og tahay ay ku samayso. xadaarada cusub iyo cunto karinta iyo xiise gaara gurigiisa ay ugu yeeshaan si fiican baan mataqaanaa uga faa'iidnay, waana taqaanaa maasha allah. xiise gaara iyo dadka waxay keenaysaa in dadku muxubiyi kalgacal hor sii hor waxa weeyaan u yimaado oo la sii xiiseeyo oo hooyadii iyo waxa weeyaan la xiiseeyo oo ciyaalkeeda xiiseeyaan oo odayga xiiseeyo. way dhaantaa marka hooyada aqoonta u leh cunto samaynta tii wax iska walwalaaqi jirtay, qaybna qowi jirtay, qaybna daadin jirtay. fursadaha waxbarasho ee haweenku ay ku bartaan muddada gaaban ayaa muuqata inay u hayaan xiise gaar ah, waxaana iminka wax ka bartaa qaybtii 8aad oo la baro isqurxinta iyo cunto karinta. barnaamijka
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada boosaaso intaasi ayuu ku egyahay. tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo. mahadsanid Faadimo Yaasiin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso. halka dhegeystayaal aad nagala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. fiidnimo wanaagsan ayaanu mar kale hawada idinka leenahay. dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. Nairobi waxaad naga heli kartaan FM-ta 107.5. Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM-ta 107.8. ha moogaan idaacadda VOA kuna xidhnow. warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegeyso FM-yada VOA ee magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan. haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com. waataa dhegeystayaal inagoo kusii siqayna gabagabadii idaacaddeenna fiidnimo markana kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona. nin ku hubaysan qori darandoori u dhaca ayaa la dilay kadib markii uu weeraray islamarkaasina ku dilay 3 askari oo booliis ah iyo nin ilaalo ah agagaarka safaaradda Faransiiska ee magaalada Dar es Salaam ee caasimadda ganacsiga dalka Tanzania. sidaasina waxaa sheegtay madaxweynaha dalkaasi Saamiya Suluuxu Xasan. xasan ayaa waxay twitterkeeda ku qortay in la dilay ninkii weerarkaasi geystay, xaaladuna ay haatan tahay mid degan. bilayska Tanzania ayaa baaraya dhacdadan oo u geystay nin asalkiisu yahay Soomaali. kormeeraha guud ee bilayska Siro ayaa waxa uu u sheegay suxufiyiinta inay tuhunsan yihiin in ninka weerarka geystay laga yaabo inuu ka yimid gobolka Cabo Delgado ee dalka Mozambique, laakiin weli waxa ay baarayaan dhacdada. booliiska ayaan bixin tafaasiisha la xiriirta sababta uu ninkan hubaysan weerarka u qaaday iyo cidda uu weerarkaasi ku beegsanayey. muuqaalo lagu baahiyey mareegaha oo aan si dhab ah loo xaqiijin karin ayaa waxay muujinayaan in albaabada safaaradda Faransiiska ee Dar es Salaam nin taagan bannaanka hore ee albaabka iyo sidoo kale iyadoo la maqlayo dhawaqa rasaasta. telefishinada dalka Tanzania ayaa baahiyey muuqaalo muujinaya bilayska u xiran jaakadaha aysan xabaduhu karin oo isku duwaya wax u muuqday meyd yaalay bannaanka safaaradda. sidaasina waxaa warisay wakaaladda wararka ee Reuters. kooxda Taliban ayaa weydiisatay Turkiga kaalmo farsamo si ay u maamulaan garoonka diyaaradaha ee Kaabul kadib marka ay ciidamada shisheeye dalkaasi isaga baxaan, laakiin waxa ay ku adkaysatay Taliban in militariga Ankara ay sidoo kale si buuxda dalkaasi uga baxaan dhammaadka bishan. sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay 2 sarkaal oo Turkish ah. codsigan shuruudda wata ee ka soo baxay kooxda islaamiga ah ee Taliban oo 20 sano kadib dib u qabsatay maamulka dalkaasi ayaa Ankara ku noqday go'aan aad u adag sida uu sarkaal sare oo Turkish ah u sheegay warbaahinta. markana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanayaa gunaanadka idaacadda inagoo ku sii siqayna codka fanaanka Cumar Shooli. waa Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. calaqalaha nuure caynka ay u yaalaan qof kastaba caashaaqu calaqalaha nuure caynka ay u yaalaan qof kastaba
caashaaqo